السلام عليكم. حق يطارق قصصاً مدحوينها ذلك كوريا ذوقوي كيم جون أون وحود شيء تاريخ مكة يهيد كون صقال بقول سدح يستيتكي وحانا وكل شيء مقال ذا بيونج يا عاصمة ذلك كاسي دير الكتشلو هانتي سوحا لو قياصا 1.7 متر حق وحبر شدنا كيم جون أون وحوك بحي لبا جامعة ضد مid kamid ayaa ku taalayso dalka Switzerland takalana miisaanka military oo ku taala dalkaasi hantida madaxweynaha ayaa lagu qiyaasay in ka badan 5 bilyan oo qoray wargeyska xagga dhaqaalaha ka warama Kim Jong Un waxa uu guursaday hal gabadh oo lagu magacaabo Koma Bizon waxa uu dhashay 3 cunug sida lagu rumaysan yahay laakiin Kim Jong Un way adag tahay in wax laga ogaado noloshiisa shakhsigan ayaa ah mid aad iyo aad hogaamiye xil adag haddaba shakhsigan maamulka adag ayaa xilka qabtay sanadku markuu ahaa 2011 kadib markii uu geeriyooday aabihii oo lagu magacaabo jiray Kim Jong Un 17 bishii 2011 ayaa uu geeriyooday aabihii soona maamulay dalkaasi muddo 17 sano ah geerida hogaamiyahan ayaa timi kadib markii uu wadnuhu istaagay markii uu geeriyooday hogaamiyahani ayaa ku sii dardaarmay in xilka loo dhiibo Kim Jong Un da'diisu waxay ahayd markuu geeriyoonayay 69 sano jir haddaba ka hor intaanu geeriyoona waa kan talada sii yidhi Kim Jong Un haloo dhiibo xilka ninkan reerkiisa ugu yar oo isagoo ahaa Kim Jong Un iminka ka hadlayno ninkan ayaa adduunka ka yaabsaday kadib markii uu amray in la dilo adeerkii oo wargeyska dawladda kaga hadlay inuu qorsheynayay afgambi ku aadan Kim Jong Un Mr. Kim ayaa haddana bishii February 2017 ayaa la rumaysan yahay inuu amar ku bixiyay in la dilo walaalkiisii kaas oo lagu dilay magaalada Colombia ee dalkaas Malaysia sida uu sheegay wargeyska Bindibidenti hogaamiyahan ayaa aad u jecel cunida hilibka iyo cabida sigaarka hogaamiyahan ayaa jecel timo jarista noocan haircut ama dhinac jarida madaxweynahan ayaa amray in sidiisoo kale loo jarto timaha ragga madaxweynahana caan ku tijaabinta hubka quwadaha waaweyn iyo gantaalada ridada dheer Mr. Kim ayaa lagu naanaysaa Rocketman ama gantaalo badane Mr. Kim ayaa madaxweynahan ee kaliya aan CV-giisa ama warbixintiisa oo dhan aan la helin Mr. Kim ayaa yawantiisii xiran jiray dareyska booliska oo ay ku taxan yihiin bilabo hamigiisa keligii taliyahana waa uu rumoobay ama waa u gaadhay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.